السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غيرت شرفت لأدبان إدي السلام يا ميلو البدوني كجوكتان. waxaan samaynaynaa ID card sambala anagoo isticmaalayna programka la yiraahdo Word documenti sambalka ID-ga aan samaynayno waxa uu yaalaa qaabkan oo kale ayuu u yaalaa waana sahlan yahay runtii wax dhib badan ma ahan marka isla socod wanaagsan ugu horeyn waxaan soo furaynaa programka la yiraahdo Word documenti ayaan soo furaynaa okay Wordka marka aan soo furno sidaan oo kale yahay warqadda kow defaultiga ah waa warqad weyn oo A4 sax waxaan rabnaa anaga marka size-kan warqadda inaan size-ka ID-ga aan ka dhigno waxaa ku dhifanaysaa layout qaybtaas kore ay ku qoran tahay kadibna waxaa ku dhifanaysaa size meesha ay ku qoran tahay waa soo furaysaa falaarteeda meesha u hooseeda waxaa ku dhifanaysaa ay ku qoran tahay more paper size qaybtaas marka aad tagto daaqadana ku soo bixi doonta kadib width-ka iyo waxa qoraysaa height laakiin hal mid ogaaw default-iga horta cabirka Word-ka waa inches waxa laga yaabaa inuu ka bedelan yahay darteed sida cabirka inches looga dhigtaan rabaa inaad tuso wax isla socod wanaagsan waxa ku dhifataa file ayaa ku dhifanaysaa file marka ku dhifato waxa ku dhifanaysaa meeshaas u hooseysa oo ku qoranta options qaybtaas marka tagto waxa ku dhifanaysaa advanced kadib waxa isticmaalaysaa searching-ka caadiga aan dhahe scroll-ka ayaa isticmaalaysaa groupkaas la yiraahdo display meesha ay ku qoran tahay show measurement in units of inches taas haddii saan oo kale centimeter ka tahay waxa ka dhiganaysaa inches ka dhiganaysaa intaas marka aad sameeydo waxa samaynaysaa okay ayaa leedahay hadda markaas cabirka ID-ga asagoo inches ayaan rabaa in aad ii sheego sababta sidaas ugu kalifaysay waa intaas centimeter ahaan waa u isticmaali kartaa laakiin inches-ka xoogaa gaaban marka waxa tagaysaa size ku dhifanaysaa more paper size qaybtaas marka aad tagto waxa qoraysaa 3.175 waa size-ka ID-ga standardka dhirirkiisana waxa qoraysaa 2.125 kadib intaas marka aad samayso okay aa leedahay ID-ga hadda xoogaa wax yar aan idin soo dhaweeyo suunkan hoose size-kaas oo kala laba inuu ahaado saas camal waxaa suuragal ah meeshan hadda ay ku qoran tahay orientation inay tusaale ahaan saas oo kale inay ka tahay laga yaabaa oo hadda saas ka dhigto maxaa dhacaya saan oo kale baashi noqonaysa waxaa la rabaa marka inay landscape sidaas ay ku tahay laba page ayuu yahay ID card-ka bagga la yiraahdo front ID-ga iyo back ID-ga qaybta hore iyo qaybta dambe si marka laba page aad u samaysato marka koowaad waxaa samaynaysaa interaleeda inta marka tiraado hadda laba page oo ku samaysan tahay shaqada ayaa gelaysaa waxa samaynaysaa waxa soo qaadanaysaa insert-iga tagaysaa kadibna waxa soo ka tagaysaa shape-iska midkaas rectangle la yiraahdo shape ayaa ku dhifanaysaa kadibna drawing aad samaynaysaa left mouse-ka qabanaysaa waa sawiraysaa okay si marka ay la socotaan kan wax yar aan soo dhaweyno suunko kale qaybtaas marka ay sidaas tahay geeso kale sidaas ugu dhameystir adigoo left mouse-ka isticmaalaya right click ayaa ku leedahay kadibna waxa ku dhifanaysaa edit bounties waxay suuro gelinaysaa in aan shape-ka jiidiido sida photoshop camal geesahaas oo kale calaamadaas marka aragto click ku siinaysaa kadib waxa ku imaanaya banankan oo kale ku imaanaya left mouse-ka qabanaysaa waa jiidaysaa sida hadda aniga aan samaynayo kale saas camal okay qiyaasaan intaas waa kugu filan tahay intaas markaad samaydo waxa ku dhifanaysaa shape format-ka kore si macnaha wax ugu bedbedesho waxa tagaysaa qaybtan ay ku qoran tahay shape fill-ka shape outline-ka color salaam waxa ka dhigaysaa colorkaas bilaaga waxa ka dhigaysaa buluuga kana waxa leedahay no outline-ku waa geesaha banaanka colorka saaran fill-kuna waa colorka shape-ka gudihiisa lagu shubayo intaas markaad samaydo geesahan mar walba iska buuxi si macnaha dhowti ay cadaan kaaga soo gelin waxa laga rabaa inaad soo qaadatid shape kale oo afar gees ah waxaa tagaysaa insert-iga ku laabanaysaa kadibna shape-ka afar geeska soo qaado geeskaas oo kale u dhawaaw kaas left mouse-ka qabo waa sawiraysaa sidaas oo kale qaybtaas marka ay sidaas tahay right click ku leedahay kadibna waxa ku dhifanaysaa edit bounties geesahaas mar walba ogaa ku raadi marka calaamadaas aragto click ku siinaysaa left mouse-ka qabanaysaa waa jiidaysaa si fudud
waa wax yaroo simbala waayo waan dhib badnayn sidaas marka uu ku yahay kalaradiisa waxaa ka dhigaysaa shayga la yiraahdo jaalle shay filkaa ku dhifanaysaa kalarka jaalaha kasoo dhig outline-ka waxaa samaynaysaa no outline aa leedahay intaas inay la fahanteen aan rajeynaa dhexdaan marka caddaan iga tahay seen kalar uga dhigaa waxaad tegaysaa design kadibna waxaad tegaysaa page kalarka kadibna kalarka orange ka dhigaysaa qaybtaas marka kalarka waa ku dhifanaysaa hal shay marka cilada u moodin fiiray hadda kii hoos oo dhan ayaa wuxuu noqday kalar dib ayaan caddaan uga dhigi doonaa marka waa arkaynaa laakiin naqshadaas koowaad ayaan dhammaystirno qaybtaas marka ay sidaas tahay haddii hadda designka aan raacin haddaa fiiriso meeshan hoose colors kale ku jiraan seen marka kalaradaas u keenaynaa wax kaloo shayba ma isticmaalayna waxaan samaynaynaa shape-kaas oo kuu dooran waxaad tegaysaa shape format-ka ku dhifanaysaa shape fill-kaa tegaysaa qaybtaas ay ku qoran tahay gradient-yaa ku dhifanaysaa meesha ugu hooseyda oo ku qoran tahay more gradient-yaa ku dhifanaysaa qaybtaas marka aad gasho daaqadan geeska ay ku soo baxdo waxaa ku dhifanaysaa gradient meesha ugu hooseyda oo gradient stopiska la yiraahdo badhamiskaas badhan walba wuxuu ka turjumayaa hal kalar u taagan yahay kalaradaas marka adiga jooska u leh haddaa rabto mid kale ku soo dari kartaa midaa ka tirtiri kartaa macnaa wax adiga u talida waa sidaa darteed marka waxaan samaynaa kan u horeeyo kale tusaalahaan waxaan ka dhiganaa kalar tusaalahaan guduuda kaasoo kale aan ka dhiganayaa ka ku xigoo kale tusaalahaan waxaan ka dhiganayaa kalar jaalla ah ka ku xiga tusaalahaan waxaan ka dhiganayaa kalar green ah ka u dambeeyana waxaan samaynayaa kalar jaalla aan ka dhiganayaa kalaradaas adiga kalarkii aad rabtaa qaadan kartaa kuwaan qaata inaad qaadato waajib maahan okay aad baa ugu dhaweyneysaa ilaa yaxad kana waxaan xagga usii sakinaynaa waa dhaweyneynaa kanoo kale kasii daba dhaweey meeshaan wax ka firinana waa qaybtaas hadda saasoo kale u ahaay saasoo kale waxaad u dhaweyneysaa kanoo kale lafti muuska qabanaysaa waa soo dhaweyneysaa kanoo kale asagana waa kusoo dhaweyneysaa hadda waxaad dareemi kartaa inay shaygii hoos iskugu yimaadeen colorskiina hoos iskugu wada yimaadeen saasoo kale intaas markaa sidaas u sameydo daaqadan waa iska soo xiree designka almost qaybta kore waa ku dhamaysan tahay waxaa ku harsan qaybtan hoose oo gadaal dambe baaga meesha dambe qaybtan waxaa lagaa rabaa marka inaad caddaan ka dhigto waxaa soo qaadanaysaa shape kale afar gees ah kadibna left mouse-ka qabanaysaa oo ku jiidaysaa intaas markaad sameydo oo la ekaysido shape filkiisa tegaysaa kalarka caddaan ka dhigaysaa no outline waa leedahay waa tirig un qayaanayna waaye kalarkii hoose kalarkan dambe oo shape-kana isku aatiyay bis marka lagama fahmayo inuu background-ka dambe caddaan yahay iyo in shape la saaray qofkii sameeyey unbaa og design-ka okay intaas markaa dhammaydo waxaa lagaa rabaa geesahan kore inaad shape kala saarto insert aad tegaysaa shape-ka shape caadi afar gees aad soo qaadanaysaa saas oo kale right click-aa leedahay kadibna edit bounties aa ku dhifanaysaa geesahaas oo kale keli ku siinaysaa si anchor bountiga uu kugu soo baxo calaamadaas left mouse-ka qabanaysaa saas oo kale qiyaas ahaan tan xoogaa heer saas camal ka dhig haddii shape-ka saas uu kugu weynaado oo kale left mouse-ka qabanaysaa waa yareynaysaa xoogaa si yarey kartaa markaa sidaas u yareyso haddana right click-aa ku leedahay edit bounties aa ku dhifanaysaa xeeraa kor usii qaadaysa sidaas markaa ka dhigato xoogaa kalaradiisa iska sax kili kusii shape-ka kadibna kalar buluug oo kale ka dhig outline-ka mar walba ka xir sidaas oo qurux badan waxaa lagaa rabaa marka qaybta hoose ayadana inaad kasoo jeediso kan oo kale maxaad samaynaysaa right click-aa leedahay copy ama control D waa isticmaali kartaa yaa kadibna right click-aa leedahay paste yaa leedahay and then right click okay waxaan sameynaynaa copy aan leenahay kadibna control V aan hadda iska adeegsanaa control V shortkadan isticmaalay qaybta hoose saas oo kale u geey si marka kor aa u jeedo left mouse-ka qabanaysaa rotate aa ku samaynaysaa waa wareejinaysaa saas oo kale marka saas u saxdo hoosaa waxyar u sakinaysaa inaad fahanteen aan rajeynaya qaybtaas sidaas markaa u dhammaydo hadda qaybtan waa iska daleedana waxaan u baahanaa hadda maahan
intaas markaa dhammaydo designkii hadda lagu diray oo ID card-kan waa ku dhow yahay maxaa ka dhiman bis qoraaladii qoraaliskaas si aad u qorto marka waxaa laga rabaa waxaa soo qaadanaysaa text box meesha kor horta oo iskuulka iyo waxyaabaha u samaynaysa waxaa samaynaysaa insert aad tegaysaa kadibna qaybtaas ay ku qoran tahay word art aad ku dhifanaysaa sambaladaas tusaale ahaan mid ka mid ah iska qaadanaysaa kaasoo kale qoraalku marka hore wuu weyn yahay waad dooranaysaa dhexdiisa tegaysaa control A aa leedahay kulligooda dooranaysaa home tab ku dhifanaysaa size-kan aad yareynaysaa size-kan ilaa xad taasoo kale ka dhigaysa qaybta kore waa xir kor u laabo colorkiisana waxaa ka dhigtaa caddaan ka dhig intaas markaa sameeyda meesha kore geey shape ka dheerayso macnaa word artiga meesha wax ku qoranaysid kadibna qoraalkii aad qori lahayd aad qoranaysaa marka tusaale ahaan waxaan qoraynaa Somali Institute of IT Accounting waxaan leenahay aan tusaale ahaan MGT qaybta hoose marka waxyar hoos u dheeraysanaynaa waxaan sameynaynaa sarti aan leenahay sitam oo kale aan ku qoraynaa barakadii aan gelinaynaa sitam waxaan rabaa kulligood inay ii noqdaan capital inaan ka dhigaan rabaa waxaan tegaa meeshaas kore hadda ay ku qoran tahay janji case-ka la yiraahdo uppercase aan ka wada dhiganayaa size-ka haddii uu weyn yahay waa yareysanayaa farta xoogaa bold aan ka dhigayaa intaas markaa sameeyda xoogaa line spacing si aad u saxdo waxaad tegaysaa paragraph aad soo furaysaa meeshaan after zero kale ka dhigaysaa ama ku qoraysaa intaas marka aad sameeydo okay aad leedahay macnaha isku dhawaanaya sadarada space-kooda waa kaas halahaas marka aad sameyso magaca iskuulka adiga magacii markaas adiga wax u sameynaysid ay ku xiran tahay macnaha waxa wax u sameynaysid qaybtaas falaarahan aad adeegsanaa falaaraha caadiga ayaan isticmaalayaa intaas markaa dhammayso loogada oo kale aan tusaalaan geeskan soo dhigaynaa waa sawir loogada insert aad tegaysaa pictures sawirka meesha uu ku yaala raadinaysaa waa baaraysaa qof walba meesha uu sawiro u yaalo markaas isaga fahmi kara kadib sawirka markaas u soo gelido cabirkiisa waxay jiidaysaa left mouse inta qabato sawirka wax la maamuli karo saa u dhigto waxa ku dhifanaysaa meeshaas raab tagas ay ku qoran tahay waxa ku dhifanaysaa in front of tagasti kadibna sawirka wuxuu noqonaa wax la maamuli karo oo macnaha la qaadi karo waxyar size-kiisa iska saxaysaa geeskaas kala dhiganaysa mid kale si aad u samayso waxaa samayn kartaa control D adeegsanaysaa shortcut soo qabanaysaa xaggan oo kale keen waxyar oo kale sidaas u weynay waxaan rabaa xoogaa background-ka inaan xoogaa aad ugu khafiifiyaan rabaa pictures aad tegaysaa meeshaas ay ku qoran tahay coloriska ku dhifanaysaa kadibna waxaad dooranaysaa midkaas wash out la yiraahdo ku dhifanaysaa intaas marka aad sameeydo qoraalkii inaad qortaa laga rabaa insert aad tegaysaa kadibna text box aad soo qaadanaysaa dharow text box waxaa la yiraahdaa sanduuq qoraaleed left mouse ka qabanaysaa waa sawiraysaa intaas marka aad sameeydo shape formatkiisa aad tegaysaa no fill aa leedahay kadibna no outline cabirka farta waxaa ka dhiganaysaa 8 oo kale ka dhiganaysaa ana size-ka farta paragraph-ka meesha oo kale waa tegaysaa space-ka u dhaxeeya sira ka dhigaysaa okay aa leedahay hadda marka waxaa gelaysaa marka qoraaladii inaad qorto tusaale ahaan name tusaale ahaan magac sambalaan isku qoranaynaa Abdikani tusaale ahaan Ali Maxamed oo kale okay hatta hadda fiirido qoraalkan aad soo qaado loogada uu ka koreeyaa maxaa keenaya shayku ka koreeyo asaga ka soo kormaraya macnaha qaacidadaas ayaa jirta macnaha intaas marka aad sameeydo inta aad leedahay tusaale waxaan leenahay ID tusaale ahaan number oo kale ID number tusaale waxaan leenahay S tusaale ahaan 3000 sidoo kale leenahay ana 3000 sadaasan u qoraynaa mar walba ID-ga waxay ku xiran tahay intaas marka diyaariso waxaa ku sii daraysaa tusaale ahaan issue date taariikhda la bixiyay ID card-ka la rabaa tusaale ahaan 12 waxaan leenahay bisha 12 2021 waa maanta waxaan sheegaynaa expire date taariikhda waxaan ay dhacayaan hal sano gudihiisa ku dhaca waxaan leenahay 12 bisha 12 2022 intaas markaan qorno waxaan sheegaynaa programka qofku uu baranayo ana wuxuu qofku markaas uu baranayo salaam waxaan leenahay information communication technology aan leenahay hadda xoogaa size-ka xataa waxaa ku siyaarsan oo ku si darsan kartaa okay macnaha hadda 10 aan gaarsiiyay ilaa intaas
kuwaan ayaga laftooda name-ka haddaa u baahan tahay tusaale ahaan bold waa ka dhigi kartaa haddaa rabto inaad ka duudo maadaama ayagu ciwaano yihiin qaybtan sidaas oo kale u farsameynaysaa marka aan dooranayo wax kale ma sameynayo left mouse aan ku dooranayaa bas okay intaas markaa sidaas u qurxido sawir soo gelinaysaa tusaale ahaan sawirka marka caadi waa u soo geli kartaa haddaa rabto waxaa sameyn kartaa shape inta sawirato saan oo kale shape inta u farsamaysato meesha markaa sidaas u dhigto shape-ka waxaa sameyn kartaa shape fill-ka waxaa ka dhigaysaa sawir shape fill picture ku dhifanaysaa kadibna tusaale ahaan sawir caadi soo gashanaysaa sawir markaas aysatid diisaan oo kale xoogaa u noqdo kale soo kale sawirka u dheeray karta intaas inaa fahantaan rajeynaya qaybtaas markaa sidaas u dhamayso oo sidaas u xaliso meeshaan hoose Muqdisho Soomaaliya oo kale rabaa ku qorto waxaad tagaysaa word art caadi iskaga qoro word art size-ka hadda farta weyn yahay waa yareynaysaa wax yar ka dhigaysaa yareynaysaa halaas markaa qorto meeshaan hoose keenaysaa waxaa ku qoraysaa tusaale ahaan Muqdisho Soomaaliya oo kale okay tusaale ahaan Muqdisho minus waxaan leenahay Soomaaliya oo kale okay intaas markaa diyaariso qaybtan hadda front end-ga waa ku dhamaysantaa macna waa design garaysay waxaa sameynaysaa marka qaybta hoose waa meesha u dambeeyay oo dhikaarka dhabarka ku soo dhigi lahayd waxaa soo qaadanaysaa qoraalkana hadda hal mar soo koobiyeysanayna waxaan sameynaynaa kan PDF-ka xeelaadkan saaraynaa intaas ayaan hal mar isla soo koobiyeysanayna control C caadi aan leenahay kadib waxaan imaanaynaa word-keenan kusoo laabanaynaa qoraal marka si aan meesha u dhigno waa inaan text box u sameynaa sanduuq qoraaleed oo wixii ku qormaan waa inaan gelinaa left mouse-ka qabanaysaa waa sawiraysaa kadibna si fudud oo simple ah qoraalka control C ku leedahay qaybtaas markaa sidaas u sameydo format-ka shape-ka inta tagto no fill no outline waa dhigi kartaa labadoodaba waxaan u fududeynaa muuqaalka wax kala maan xoogaa si adika kugu caajisin waqtiguna uu soo gaabto ayaan u boofsiinaya qof walba work inuu qoraal ku qori karo waa rajeynayaa line spacing kan xoogaa aan wax yar aan kala fidinayaa saas oo kale meesha hoose marka asagana waxaan soo qaadanayaa qoraalkaas ku qoran sidiisaan usoo koobiyeysanaya control C aan leeyahay meeshii ayaan imaanayaa hal mar aan waxaan leeyahay enter control V aan ku leeyahay qaybtan haddaa rabto kalarada waa kala duwi kartaa qaybtaas hoose kalarkiisa xoogaa kalar kale waa ka dhigi kartaa laan gaduud oo kale qaybtan ayadana lambarada tusaale ahaan kalar gaduud waa ka dhigi kartaa bas sawir dhikaarka markaa saas u design gareedo oo sidaas u sameydo waxaa laga rabaa sawirkan xoogaa background-ka xoogaa inuu kalar kale ahaaya ficnaalad oo cadaan u ahaa lahaa sidaas xoogaa wanaagsanaa lahayd sawirka xoogaa hal mar waa iska bedelaynaa sawir kale baan soo qaadanaynaa oo iska caadiya haddii aan helno waaye okay sawirro kale tusaale ahaan sawir caadiya okay sawir mar walba waxaa rabaa dhikaarka waxaa fiican sawir xoogaa qofkuna uu soo jeedo background-kiisa dambana oo color saalan cadaan yahay oo kale sidaas oo kale fiican saas oo kale sameynayna kaas oo kale markaan soo qaadano raab tagasti aan tagaynaa in front of tagasti mar walba la rabo sawirka la rabo in laga dhigo wax la maamuli karo ayaa la isticmaalaa kan raab tagastiga haddii kale wordka sawirku marka aad soo geliso inaad u taliso oo maamusho macna ma ogola sawirka waxaa sameyn kartaa effects-kaas hore inta tagto effects u yeeri kartaa sawirka saas camal waa si macna design-ku oo xoogaa design soo jiidasho la si uu noqdo okay qaybtaas inaa fahantaan rajeynaya markaa sidaas u dhammaydo waxaa la rabaa oo design-ka naqshadii dhammaysato waxaa laga rabaa ID-ga inaad PDF ka dhigataa la rabaa maxaa sameynaysaa F12 la taabtaa ama save as aad tagaysaa computerka kili ku siinaysaa tusaale ahaan ID tusaale ahaan YouTube oo kale aan bixinaynaa qaybtan marka waa soo furaysaa PDF ka dhiganaysaa shaashadoo kale dooranaysaa save ku leedahay
markaas markaa ID-ga haddaan design garaynay qaabkaas ayuu yaalaa. dadka qaar ID-ga 5 marks ayay ku qaadanayaan oo waaba assignment laga rabo. dadka qaarna cilmi ahaan ay u baranayaan. si kastaba iskugu jirtaanba dhammaantiin waa wada salaamayaa. insha Allah kulan dambe oo xiiso leh.